fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال هبين وعنو ونكسن ميل والبا وضعاوا عالمka ka joogtaan ku soo dhawaada warka habeenimo sportiga channelkeena ugu weyn caawa ciyaaraha qodobo badan baa noo socdoon caawa ku soo qaadan doona ciyaaraha kanu Arsenal, Tottenham iyo Manchester United oo haddaba ciyaartooygoodii ay dib ugu soo noqdeen laakiin ku soo weeraray ciyaarihii xulalka ciyaaryahanna badan baa fayraskii ku soo dhacay ee xulalka oo ciyaartooy badan baa kooxaha waaweyn ee Ingiriisku dhaawac ka soo gaaray iyo qodobo karan caawa ku soo qaadan doona ciyaaraha ninkii Conte ahaa inuu Inter Milan laga yaaba Gundogan City saga baxay isaguna suurtagal iyo qodobo kale oo caawa ciyaaraha ku soo qaadan doona waa sidee saadaasha kulamada isbuucan laga ciyaari doono Premier League hadda waxaan ku sheegi doonaa mid kamid ah qubarada ugu fiican ciyaaraha ama ciyaartooy hore Premier League ka soo ciyaari jiray oo haddaba saadaaliyo kulamada toddobaadka la ciyaari doono Premier League waxay ku dhamaan karayso Messi cunugii yaraa uu dhalay wuxuu leeyahay aabahay inay dilaan beeraman dadka reer Argentina iyo qodobo kale oo caawa ciyaaraha ku soo qaadan doona uu qayb ka yahay waliga ma maqashay difaac ku dhahaya ninka ka soo horjeeda walaalow gambiskan iga yaray almiino hadad iga yeeleynin xataa iga wada dhaaf almiino hadad iwaalaysa xataa iga yaray hadii kale cisbitaal baan ku dhigayaa waxaan caawa ku sheegi doonaa ciyaaryahan Chelsea ka tirsan oo hadda ka hor intuu ka yaabo Ronaldinho ugu hanjabay inuu cisbitaal ba dhigayo isagu dhanba baabi'inayaba iyo qodobo kale caawa ciyaaraha ku soo qaadan doonaa oo uu qayb ka yahay Dani Suarez oo ciyaari karaya kulanka ugu horeeya Arsenal toddobaadka kan oo la ciyaaraysa Newcastle يعني muddo kadib baan ayuu ciyaari doonaa halka Suarez-kii kalena uu soo noqday iyo qodobo kale ku soo qaadan doona caawa ciyaaraha 12 ciyaaryahan Man City uu hanjabaya kuwa Liverpool iyo arimo kale oo muhiim ayaan caawa ku soo qaadan doona ku jiro Fabregas oo xusharagii ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaara iyo qodobo kaleba oo ay ku jirto shaxda Liverpool iyo Spurs toddobaadkan uu ciyaarayo koox isku dhafa laga sameeyay haddaba warkii oo faahfaahsan wararka caawa ugu weyn ciyaaraha waxa kamid ah ninkii uu ciyaari jiray kooxda Chelsea Makalele ayaa hadda maanta uu qabsaday baraha bulshada caalamka isagoo markuu Ronaldinho uu celi kari waayay intuu ku wareeray waryahiga dhaaf gambiskan faraha badan madaragta waliga ciyaaryahan intuu wareeray oo gambiska laga badiyay intuu ninka ka hortay uu ku yiri waryaa ma iga dhaafay geedkan ugu wareerinaysa mise waan ku kala jibinay isbitaalkan ku dhigayaa يعني مقاركي هذا انت لو قراعي بو يابay makale uu yiri wallahi aan isbitaalka u diraya naga daawo yir wax balon caadina la ciyaar hadaad rabto saacadi ugu gambi laakiin sidii PlayStation amal ugu gambin Allah ninkaas oday buu ahaa Ronaldinho arwa tagay kaasu warkaas waa tagay saalin haydiku ninkaas waa tagay kamal daari ninkaas suura uu ka yeeshtay asoo bari u jeedo oo uu koonfur goolka dhalna asoo isdurbaan loo garaacayo iska neekanayo goolka iska dhalay jiris ugu xadaya wash ugu siinaya ya war ninkaasaan ku maqaarka wuxuu ka sameeyay bini aadan caadi maan u ahayn midka ka Daniel waa midkii Brazilka ee Barcelona ciyaaray waxaan ka hadlay waa Ronaldinho waxa sidaas dadka ugu qeelanaya isagu uu ahaa الله لكن وقت يربو أسوق أدوك وهيستيو لاعب كدنيا الله دورتي أرى نكاس محو كبير ياهي يا ninkaas wuxuu ku dhawaaday geedkan la aariyay ee Banooniga inuu la hadlo ku dhawaad ninkaas Ronaldinho ah waa ninkii bini aadan ahaa ee geedkan aariyada lagu shubo soo idigu ma dhahdeen Banooniga cad iyo madow waaye Banooniga cad iyo madow waaye qofkii Ilaahay u qoro Ilaahay ku qoro waa badinaya laakiin Soomaalidu waxa la yiraahdaa Banooniga waa cad iyo madow Banoonigan wax ma maqlaayo nacla abuug waaye anaba dhahaba Banooniga nacla abuug waaye saan waaye ciidan baryahan waa la tumay isaga cimaamad ma garanayo ciidan baryahan wala saarnaaye war guul dara kale ugu dari ma yaqaano ciidan baryahan iska raaxaysanaysi balcabada laga badi ma garanayo nimankii baryaha la saarnaa ee la dhahay arkuwan waa ka taalay mukamal daarigan ka bootiyo kuwiya laga sii badinayaaba laakiin geedkaas la aariyay ee Banooniga ee aariyada lagu shubay ninkii ugu horeeyay isku dayi garay inuu la hadlaba ninkaas uu ahaa war ninkaas asoo inta taan kubadda inta laga kontrola heer wuxuu ninkaas gaari bir kubadda inuu wacdo yiraahdo wariya kubaday wariya midkaadan la aariyay kaali inta igu imaw heer wuxuu ku dhawaaday kamal Banoonigaba inuu la hadlo ku dhawaaday ninka warkaas waa tagay war waa ninkaas wax kalaba ninkaas maqaar waa garaaca Ronaldinho ariska dhaaf midka kaas waa nawaali gaaray haddaba waxa ka sheekeynaya haddaba ciyaaryahan hore Chelsea ba intuu yaabay wuxuu yiri wallahi waan ku kala jibinay isbitaal baana ku dhigaya
عادي بنوني يقول مرة دتك بني آدم بنوني اسكو جنبي أنا عادي يقول جنبي لكن جنبي كان أو كدريجة يقرافو يري مقتنع نيكاس جنبي عادي ما هيني نيكاس بنوني جس كدريوة دتك عادي يقول جنبي أصير كدريوة نيكان واي يا بي عادي يقول جنبي كده على وريرين أنا خاب جني يعرفيد بلاي ستيشن عملها يقول جنبين بقى nin madowyo haduu ku kacday waraawan qabnaa moogtaan wadaan dad madownahay waa ka kuladii makalale ayaa ka shakiyay mar uu hanjabaad toos u jeediyay Ronaldinho intii lagu gudi jiray kulan ciyaareed ay u dhaxeeyay Chelsea iyo Barca isagu makale wuxuu ahaan jiray Chelsea uu ahaan jiray laacibkii qadka dhexe Chelsea ayaana sheekadan daha ka rogay warays uu siinayay saaxiibkii oo ay ka wada tirsanaayeen blow glass Chelsea ayaana 6 jeer tartamada Yurub ku wajahday Barcelona sanadii u dhaxeeyay 2005 ilaa 2007 afar kamid waxay ahaayeen wareeg 16 ku kulmeen dhammaan 6da kulan makalele ayaa waji ka wuxuu kaga hor imaanay Ronaldinho oo ku jira waqtigaas kii ugu fiicnaa shaki la'aan laacibka ugu fiican adduunka waqtiga buu ahaa yeelkeeda makalele uma riyaaqin oo mala dhacsanin farsamada ka badbadiska ee Ronaldinho uu sameeyo si uu soo jiito dadka dareenkooda aryabaha arkii wixii sameeyay fariga la kala jiray wuxuu diiday ninkan marka caadi ugu gambi laakiin gambiskan oo dadka lagu soo jeedinayo oo ka badbadiska ay ku sameeyeen buu yiri markuu sameeyo Ronaldinho garogna qayla ay dadka leeyihiin wuxuuna ka dhawaajiyay in Ronaldinho uu sheegay inuu ka joojiyo farsamadan warniyo iga joojiyo farsamadan ka badbadiska warniyo farsamadan ka badbadiska iga joojiyo hadii kala cisbitaalan ku dira ay ka gaartay ninkii makalele ahaa waxaan jeclaan lahaa inaad ii timaado isla markaan si sax ah igu gambiso walaalkayga ma ku diiday inaad ii gambis ma kugu haysti geedkan waa naga wada dhaxay la ariyay saad rabti ii mar baroni yani caadi igu gambi laakiin dheeshay ka dhaafireed adigu waalaysa aniga wuxuu yiri iga hor imaw si sax oo caadi dadka isku maraan igu gambi laakiin dhammaan farsamadaada qiyaanada ee PlayStation oo kale waxay iga dhigi doontaa inaan cisbitaal ku diro walaalow wuxuu yiri waxaan iga dhaaf caadi igu gambi laakiin ka badbadiskan oo dadka leeyahay wada diraayo war hadaad igu sameeyso intaan ku kala jibiyaan cisbitaal ku diraya waa u sheegay war waxaan ku diray cisbitaal ayaan ku yiri markaas Ronaldinho ma xanaaqin buu intuu yimaado xiri kubadda ayuu si yiri uuna iraal gali iga raal hor saaxiibkiyo meel dheer waa ka joogtaa macna mudarim saad meel dheer ka tagtay bal iga raal noqo yiri yani ma kale wuxuu yiri caadi igu gambi laakiin ka badbadiska iga dhaaf yiri saaxiibo almiina iga yaray xataa gambiska faraha badan Ronaldinho wuxuu raal noqo saaxiib kubadda yalsiig ma kale waxa la qaado kubadda kowde iga raal noqo yani Ronaldinho wuu diray xataa ninka inuu macna meel dheer ka gaartay marka ninkaas nin la jooji karmaan waxayn makalele waxay ka tirsanaa Chelsea sanadii u dhaxay 2003 ilaa 2008 ayaa sidoo kale Ronaldinho laba bar dhigay saaxiibkii ku wada tirsanaayeen Madrid ee Zidane hayeeshii wuxuu sheegay Zidane inuu ahaa farshaxan xamiiste kubadda cagta oo meel fiican ku dhameeyo kubadda cagta halka farsamada qiyaanada ee Ronaldinho ku sheegay mid badana aan loo baahnayn dheel waa macnaha marka waa ka ciyaartooyga Chelsea caawa qeyliyay ninkaas adduunka soo maray waxaan ciyaaryahan waxaan arkaysaan wax kale nooga dhigaysaan waxa habar walba xaarkeeda sheexayu tiraada habar oo cunugeeda caynaysa ma jirto cunugeyga cadaay caana boolahayga hilibka cadiintiisa ilaa habarta yani habartaas cunugeeda xun yahay xataa cunugeyga macaanahay sakorowgeyga ku leedahay hadda dadkan kubadda cad u taageera nin walba ciyaareen wax kale kaaga dhigaya anaga hadda Manchester nahay ninkaasan haysana Chelsea oo kana haysana ule war waxaan ciyaaryahan ma haysataan war ninkaas Babyloniga soo maray diiniyo cimaamadiisana wallahi la haysan karinba أخبارات كلا عاوية وقومي سعيارها وحا كميدا أغنيلي مدحوينها كوحدة يمسوح وقو باقي لبدا كوحوت ميلان كوني كلا بحان انتري ميلان ويوفي عان تاوريني قرون عصب أيشان يوفنتوس أي هادا قرون يارا إسكاله وأفرتي كوكم قادة لكن لبدا كوحو يدقين قرون لحدا كون أو تايرال قادة أو سانسيريا وعني لبدا كوحدة قوانكو قاريني كلا تاقان ويحنا مدحوينها يوفنتوس سودو ويهدي لبدا كوحود وين أي قرون كلا دوني يالانيان ويدين في عنته وفي عنته ولبدا كوحود بيني قرون يشان وينما وين اسمه هرتاقنان كريان مانترون هالقرون لو وضع عياري كريان waxa kale oo ugu muhiimsan caawa ciyaaraha Arsenal Tottenham iyo Manchester iyo kooxo kale weyn oo Yurub ayaa ku soo yani aad ugu carooday ciyaaryahanadii kaga soo dhaawacmay ciyaaraha kubadda cagta ee xulalka inta badan ciyaaruhu xulka lama jecla oo ciyaartooyba kaga soo dhaawacmay hadda Arsenal kale waxa ka soo dhaawacmay Xhaka iyo Ramsey ka soo dhaawacmay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham Aurier iyo Sergio Aurier iyo Dier ba ka soo dhaawacmay oo ciyaar muhiim bayna toodka la ciyaarayaan Liverpool Eric Bailly ba ka soo dhaawacday Manchester ka soo dhaawacmay Mina iyo Dani ba ka soo dhaawacmay Everton halka ninka la yiraahdo Ronaldo kasoo dhaawacmay kooxda Juventus sidoo kale kala dhaawacay way jireen oo min Arnold min Marcus Rashford Shaw Dalve Javchek iyo John Stones qaarkood hore u dhaawacnaayeenba marka waa ciyaari xulka rag badan ay ku soo dhaawacmeen
akhbaaraadka lagu miisan caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Inter Milan waxay warar ku leeyihiin waxay qaadan rabaya Antonio Conte halkay ka qaadan lahayd Jose Mourinho waxay Inter xagaga dambe la wareegaysaa tababaraha kan ee Antonio Conte waqti badan ka Serie A ka soo shaqeeyo Juventusna Serie A la soo qaaday haddaba waxay warar ku leeyihiin labadu macalinba waa la xiriirinayaa laba kooxda tan Inter waa Mourinho iyo Conte laakiin waxay ka doorbidayaan sidii Gazzetta dello Sport cadeynaysa caawa waxay ka doorbidayaan in ay ku bedeshaan isbeddelay ninka la yiraahdo Antonio Conte marka Mourinho mar rabaan baa Inter Conte bay doonayaan macnaheedu hore Chelsea waxa kale ugu weyn caawa ciyaaraha Gundogan ilaa hadda sidiisii uu taagan yahay inuu Man City ka taga ayuu doonayaa ninka kanu waxay ka go'an tahay inuu xagaaga soo socdo kooxda isaga baxo waa wiil 27 jir ah oo u ciyaara kooxda Pep Guardiola laakiin ninka kan waxay warar ku leeyihiin Dortmund inuu ku noqdo ayaa suurtagal ah ninkan wuxuu diidayaa boos la'aanta halkan ku haysata yacni Man City boos joogto ah ma haysto waxaanay ku xiran tahay booskiisa joogtada mararka qaar uu ciyaaro hadda uu ciyaaro waa markay ciyaaryahan dhaawac ka dhaawac Man City uu iska ciyaara mooyaane haddii Kevin De Bruyne dhaawac ka soo noqdo fit noqdo Fernandinho day soo laabtaan asagoo ku boos weynaya marka ninkan wuxuu isleeyahay meesha boos kama haystay isaga tag marka City waxay diyaar u tahay ninkan isku dayday inay cishato maadaama suuq in laga ganaaxay u badan tahay laakiin haddii City aan suuq laga ganaaxin way iska fasixi doonaan Gundogan laakiin haddii suuqa City loo fasixin marka waxay City isku dayday doontaan ninkan inay cishato marka waxay warar ku leeyihiin ilaa hadda Gundogan warkiis wuxuu yahay inuu buuxu doonayaa waxaanu diidayaa boos la'aan City ku haysata ilaa ninkan boos kama haysto rag dhaawacan darteed buu ku ciyaaraa mooyaan haddii dadkaas soo noqdaan waa u dhamaatay Dortmund baa laga yaabaa inuu ku laabto wararka caawa weyn ciyaaraha waxaa ka mid ah ciyaartoogii hore Premier League ka ciyaari jiray Robbie Savage ayaa saadaaliyay toddobaadkan kulamada Premier League iyo natiijooyinka kusoo gabagaboobi karayaan ama ay ku dhamaan karayaan wuxuu saadaaliyay ciyaarta u dhaxaysa City iyo Fulham City ay 3-0 ku badin doonto tan Brighton ay Southampton gool kaga adkaan doonto Crystal Palace ay 2 kaga adkaan doonto Huddersfield Burnley iyo Wolves ay gool gali doonaan Leicester ay 2 ku garaaci doonto Bournemouth United ay 3-0 ku garaaci doonto Watford Chelsea iyo Cardiff ay Chelsea 2 ku adkaan doonto West Ham 2 ku garaaci karto iyo gool Everton Liverpool iyo Tottenham ayuu saadaaliyay in ku dhamaan karayo barbaro 2 gool iyo 2 gool ah wareer Liverpool kama doon farxin ila Liverpool hadii markaa isku kufto markaa waa loo yaabaayo marka Liverpool natiijada kuma faraxsano ninkan uu saadaaliyo 2 iyo 2 uu yiri halka Arsenal ay 2 ku garaaci doonto Newcastle kulan kale weyn baa jiray oo Celtic Rangers ah wuxuu saadaaliyay oo Scotland ciyaarihiisu ah Rangers in 2 ay ku adkaan doonto iyo gool akhbaaraad kale ugu miisan caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah ninkii Messi ah wuxuu ka sheekeeyay sida wiilkiisa uu mar walba ku yiraahdo in dadka Argentina isagu necab yihiin reer Argentina Messi ma jecla waxay u necban waxay tahay waxay yiraahdaan xulkeen wax uma qabto kooxdiisu wax badan u qabtaa final ayuu la gaaray waanay ku guul dareysteen Messi wuxuu sheegay wiilkayga markuu arko oo uu daawado fiidiyowyada la soo gelinayo baraha bulshada ee ah naceebka Argentinianku anigu ii qabaan wuxuu yiri wiilkayga wuxuu yiraahdo aabe war kuwan uma waxay rabaan inay ku dilaan aabow waxay rabaan aabow ma nimankan dadkan Argentina u dhashay ma waxay rabaan inay ku dilaan baadiga yaani wuxuu dadka Argentina wadad eed badan buu aad ii eedeeyay anigu yiri yaani rabo yaani heer waxay ka taagan tahay inay dilaan anigu wiilkaygu wuxuu igu yiraahdo war aabow kuwan miyay ku dili rabaanba sabab kale ma jirto waa waxay ku naceen ay tahay in Barcelona uu la shaqeysto laakiin xulku waxba u qaban walow aanu dadaalkiisa meesha ka maqnayn laakiin wali wax badan baa looga baahan yahay laakiin Messi xataa wuxuu beeniyay wararka sheegaya in tababaraha xulka Argentina isagu amro sanadii u dambeeyay waxa lagu eedeynay Messi in tababarayaasha Argentina isagu xataa amarkiisa uu ku amray ciyaaryahanka uu rabo isagu xulka lagu soo darayo midka uu rabo in safkooda lagu soo bilaabayo midka uu rabo keed la gelinayo wuxuu warkaas waa been anigu macallimiinta ma go'aamo yiri iyaga shaqadooda iska leh Luis Suarez baa dhanka kale tababarka ku soo noqdayo Barcelona ayaana doonaysa in hogaanka 10 dhibcood ay ku hayaan toddobaadkan ay sii kordhisaan marka ay la ciyaareen Espanyol Barcelona Lucky Luis baa u soo laabtay oo ku dhaawacmay ciyaartii Marso 17deedii marka uu badal lagu saaray haddaba waa ciyaaraya baa leeyahay kulanka toddobaadkan marka Suarez maanta tababarka lagu arkayo waa ka isaga iyo Messi saaxiibkiisa xabadeynayaan waa waru fiican labadu ninba hadda u diyaaro Cusmaan baa leeyahay Cusmaan qabaarnimo u badilaysa mooyaane nin xoogaa nin maxal yiraahdo xoogaa qabooban oo qoyan baa fiicnaanaya nin qalalan shimuu dhaawac ma ka soo kan waa qalalaya Cusmaane dadka qoyan waa ka Messi uu ka soo noqday Suarez uu ka soo noqday vitamina ku jiro laakiin cunugan waa qalalaya ma la qoy kara ilaahay markiis waa qalalaya oo Cusmaan qabaar waa ka ka xaxaabayo waa ka malaha cunto khamsax buu cunaa maalinkii sambuusi buu ku noolyahay dadkan oo isku rooyin dhaylay cunaan Suarez gaar ahaan maqaayadba u furan tiyo ka xamaashtaa ka shaqo ka cunta ayaaba isaga isku roon suu hole madartu caluuka yahay waa isku roon yahay kaas isku marroona waxa kale oo jira Dani Suarez baa isna toddobaadka laga yaabaa kulankii ugu horeeyay inuu Arsenal u ciyaaro tan iyo bishii Janaayo ninkan si loo soo qaaday Dani Suarez aan kaysanay Dani san soo qaaday Arsenal si u sheegayeen wiilkii waa la waayay toddobaadka kulanka Newcastle isniintu dhacaya inuu ciyaaro ay u badan tahay leeyahay waliba safka koowaad uu ku soo bilaaban doono ninkan ayaanu Arsenal u ciyaarin oo ugu soo bilaaban safka koowaad kooxdan tan iyo Janaayo markaas amaha ugu soo wareegay toddobaadkan waxay warar ku leeyihiin safka koowaad baa lagu soo bilaabi doonaa Philippe Coutinho xataa waxa wali uu ka go'an tahay inuu Barcelona isaga tago ilaa hadda
kooxdu qarka u saanaya waa Manchester United oo kooxda aad u xiiseynaysa marka Coutinho way ka caddahay bal wuxuu diyaar u yahay Barca isaga tago 41 ciyaarood buu ciyaar xagaa kan laakiin boos joogta kama haysto meesha taa Manchester United baan ah kooxday aad ka ugu badan tahay inay qaada karta ninka kanu واو وارياي كوان ما ليفربول بي ugoodinayaan bal fiiri 12 ciyaaryahan oo Man City markay xulalkooda dib ugu soo noqday waxay u goodinayaan kolba Liverpool sawir bay wada galeen oo ileehin diyaar baynu nahay waa kanu bal fiiri waa Danilo Aguero Mangala Silva Company Mahrez Mendy golhaya Muric waa ka dhamaantoodo waa kay leeyin diyaar baanu nahay oo tababarkii maanta waa kay u muuqanayaan kuwa isu diyaarinaya ciyaarta Fulham iyo inta ka dhiman todobaadyada Premier League ay rabaan inay xoogsadaan oo ay difaacdaan runtii waa malma shaqo la gadu galaya diyaar baynu nahay leeyihiin reer Liverpool oo ogaada amal Fabregasna wuxuu ku dhawaaqay ciyaaryahanada ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray waxa uu goolka galiyay Eke Casillas difaaca dambeed wuxuu galiyay Alves difaaca dhexe John Terry iyo Gerard Piqué dambeedka bidix Jordi Alba ka dhigay difaac qadka dhexe wuxuu ka dhigay Patrick Vieira Andres Iniesta labada garbood wuxuu ka dhigay Messi Hazard weerarkan wuxuu ku turtay Henry iyo Diego Costa wallahi waa shaqo khatar badan dhanka kalena kala wuxuu leeyahay war ciyaartuba aan joojina gabi ahaanba hadii qof midibkiisa lagu caayo war ciyaartuba gabi ahaanba aan joojino kadib ciyaarta Ingiriiska iyo Montenegro ciyaaryahanno England la caayay oo midibkooda lagu caayay wuxuu leeyahay kolob intaan kadib lama sii wadi kara ciyaar uu leeyahay aanu joojino ciyaarta markiiba qof la caayo midibkiisa lagu caayo leeyahay kolob meel dheer bay ka tagtay mar wax laga weydiiyay su'aasha xilli kooxda Liverpool ay la ciyaarayso Tottenham todobaadka kanu waxana koox isku dhafa laga sameeyay labada dhinac oo goolka waxa la galiyay Alisson Barker Van Dijk iyo Otherwell baa difaac jooga Arnold Robertson baa dambeedku bidix iyo midig jooga Liverpool baa ku badan shaxda tanu qadka dhexe waxa la galiyay Fabinho Ali Erikson weerarkuna waxa qaatay Liverpool waa Mane Salah iyo Kane marka Alisson iyo rag Liverpool baa ku badan oo Tottenham shaxdan isku dhafka ah koox yar in yar bay ka heshaba عو عياره وكا نبتقليو